dagaal qabiileedka mudug asbuucan waxaa laga calaamadeeyay dhacdadii ugu foosha xuneed abid. Waa markii wiil iyo abtigiis ay isugu aareen laba qabiil oo ay kasoo kala jeedaan. Wiil iyo abtigiis oo laba reer kasoo kala jeeda ayaa labada reer u dagaalamay. Labadaasi reer ayaa markii koobaad waxa ay dileen abtiga markii ay dileen kadib reerkii abtigu uu kasoo jeeday oo raba in ay aarsadaan baa reerkii kala soo raadsaday. Waxa ayna heleen wiil ninkii la dilay abti u yahay laakiin qabiil ahaan kasoo jeeda qabiilka dilay asaga. Macnaha ninka abtiga qabiilkii dilay ma aysan fiirin wiilkan asaguba waa dhibano oo abtigiisa la dilay wiilkii ayay dileen. Qofka intaasoo dhan kasii dhibka badan ayaa waxay tahay hooyada wiilkaasi dhashay ee la dilay wiilkeeda ee haddana horey loo dilay walaalkeeda. Gabadhaasi xanuun noocee ah ayay dareemaysaa. Waxaa la dilay walaalkeed oo geeridiisa loo soo sheegay oo lagu yiri waxaa dilay qabiilka adiga aad ilmaha u dhashay ee ilmahaadu ay yihiin. Iyadoo arrintaasi la murugaysan xaalad xun ku jirta walaalkeed la qabiilkii ay ka soo jeeday ayaa soo baxay iyagoo u aaraya walaalkeed waxa ayna dileen wiilkeedii 9 bilood ay soo siday ay intaasi korinaysay nafta ay ka qaadeen qabiil aawadeed. Qofka noocaas oo hooyada ah balcaaw maxay dareemaysaa qabyaaladda iyo xanuunkeeda iyo qaabdaradeeda sida ay tahay. Bal qof kasta oo Soomaaliya u ogaayay mar kale waa inaad dhadhansataa noocan inay qabyaalad u dhaqanto.